qaabka aad u soo qaban qaabiseen munaasabadan muqdisho aad ku qabanaysaan marka hore waxaan u hambalyeynaya dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed xuska maalinta 15 May ee aasaaskii ururkii gobonimo doonka SYL marka xigta qabanqaabada ururka xalfadda aan u sameeyay maanta waxay ahayd mid heer sare waxaa ka soo qayb galay qaybo badan oo bulshada kamid ah ardayda jaamacadaha Muqdisho kala duwan ardayda dugsiyada sare ee ku fursadaha u helay dhamaantoodna waxa ay si weyn uga qayb qaateen dooda oo maanta aan kaga doodeynay dhalinyarada iyo wadaniyada waa tahay gudoomiye adigoo aad u mahadsan waxaad ii sharaxdaa ururkan dhalinyarada aad ku magacowdeen ururka dhalinyarada Soomaalida u istaagtay goorma la idin doortay waa ayase cidda idin magacowda xilkan waxaan filayaa in maxaa wadanka Soomaaliya uu yahay wadan xur ah ururkan dhalinyarada Soomaaliya u istaagtay Youth for Somalia YFS waa urur madax banaan cidna ma dooranin waa urur dhalinyarad waana urur maxaa wadani ah waxaana la aasaasay 2010kii waana urur u dooda arrimaha dhalinyarada waxaana ka shaqeeyaa soo nooleynta wadaniyada waxbarashada iyo u doodida xuquuqda dhalinyarada waa tahay marka tan iyo markii hawshan aad bilowdeen maxaad qabateen oo dhalinyarada aad u qabateen bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan qabanay walaal waxyaabo aad u weyn waxaan qabanaa seminaaro waxaan qabanaa tababaro waxaan qabanaa xalfado ama bandhig faneedyo lagu muujinayo wadan jaceelka alxamdulillah waxaan ka qayb qaadanay gurmadkii abaarihii anagoo kaasanayna hay'adaha caalamiga waxaan qaybinay cunooyin aan u qaybinay dadka barakacayaasha aad iyo aad ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ay qayb qaadatay gurmadka abaarihii waxaan kaloo qabanaa wacyigelin aan u sameeyno dhalinyarada oo dhinaca tahriibka iyo qabyaalada oo aan ka wacyigelino kuna dhiirigelino jeclaashaha dalkooda iyo u shaqeynta danta guud ee dalka Soomaaliya waa tahay waxaad ii sheegtaa ma jirta aqoonsi aad ka haysataan dawladda oo aad dalka kaga howlgalaysaan bismillah walaal aad u mahadsantahay su'aashaas waxa ogsoon tahay wadankan inuu yahay wadan nidaam leh annaga waan la shaqeynaa institutionada dalka ka jira dawladda federaalka ee ku meel gaarka Soomaaliya waxaan ka haysanaa aqoonsi wasaaradda dhalinyarada iyo sportiska waxaan xiriir leenahay hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa localka ah kullina waxaan nahay saaxiibo waxaan kaloo saaxiibo leenahay ururada dhalinyarada ee ka jira gudaha dalka waana la kulanaa waxa kaloo aan la kulanaa dhaqameedyada kulli aad baan xiriir ula leenahay walaal waa tahay marka bulshadu sidee bay ku qaadan karayaan hadalkaas maadaama la socdo in dhalinyaradu ay ku leeanayaan badaha iyo badda Mediterranean-ka ee Talyaaniga iyo Liibiya iyo waliba badda xeebta Yemen oo dhalinyaradu ay aad ugu baaba'ayaan hawshaad qabanaysaan iyo waliba hawshaad qabanaysaan iyo waliba baabaa dhalinyarada marka la eego maxaa bulshada u soo baxaya wallahi waa arin xaqiiqi jirta in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku la'aanayaan badaha iyo dagaalada ka jira haddana lama oran karo in laga fariisto ayaa haboon oo inta la dadaali karo oo wax la qaban karo waa la qabanayaa haday tahay dhinaca wacyigelinta annaga kulli waxaan soo jeedinay in kor loo qaado fursadaha shaqada iyo dhowrista xuquuqda dhalinyarada waayo hadii lagu tunto xuquuqda dhalinyarada oo tacadiyaadka xagga amniga loo geysto waxa badanaysa heerka dadka wadanka ka cararayo hadii la yareeyo fursadaha shaqada iyadana waxa yaraanayso dadka jooga kulli waxay ka qayb qaadanayaan in dalka ay dhalinyarada ay ka cararaan ama ay u shaqeynin ama kulli waxa mar allaale markasta maamulada ka jira dalka ku dhiirigelinaa in dooraan xuquuqda dhalinyarada ay asaasiga sida inay hantaan shaqadooda waxbarashadooda iyo amnigooda waa tahay marka howlaha noocaasa yaa idinka gacan siinaya mise idinka ayaa isu taagay oo qarash walba oo ku baxaya tallaabo waliba aad qaadaysaan jeebkiina ayuu ka baxayaa wallahi horta waa arrin su'aal muhiim ah iskaashata ma kufto hadaf laana qabnaa oo dhalinyarada Soomaaliyeed aad bay u jeceshahay in arrimaha dhalinyarada iyo wax qabashada dalka waa ku dhiirigelinaa aad aan aga mahad celinaa dhalinyarada soo ajiiba ee ka qayb qaata abaabulka iyo bandhigyada iyo wacyigelinta kulli ma jirto hay'ad ama maamul gooni ah oo si toos ah anaga noo taageero damaanad qaada waxyaabaheena
annaga muxuu ahayto jeebkeena ka bixinaa oo annaga iska aruurino. dhalinyarada Soomaaliyeed waa dhalinyaro oo hodan ah, wax way haystaan, qaar way shaqaystaan, kulligoodna way awoodaan inay wax bixiyaan oo quraansho aruurtay bulac waajida ayaa annagana lagu sheekeyn jiray markaa yareen. tani ayaa haddana laga dhabeynaya, waxa waaye istaaga waa laga kacay, waqtigii Soomaaliya loo istaagi lahaay oo dhalinyarada ay wax qabsan lahayd ayaa la joogaa, waana qabsanayna insha Allah. waa tahay tallaabooyinka aad u qaadeen dhalinyarada inaad ka wacyigelisaan tahriibka iyo dhibaatada uu leeyahay maxaad nooga sheegi kartaa? annaga waxaan qabanaa maadaama dadka qaar ay qabaan foreign phobia waxa la dhahayo, ama ajaanibta ama wadamadaas iska jeclaanayaan, annaga waxaan tusaaleynaa ama mar kasta aan tusinaa in dalkooda uu ka qurux badan yahay, ka wanaag badan yahay, khayraadkiisana ay ka hodantisan yihiin. mar kastana waxaa ku dhiirigelinaa in wadanka uu leeyahay fursado shaqo saamixi doonto insha Allah in dadka Soomaaliyeed ay ku noolaadaan nolol iyo barwaaqo, laakiin laga doonayo dhalinyarada inay waqti badan ay ku bixiso isdhexgalka bulshada iyo ka shaqeynta nabad, yareynta saameynta dagaalada qabiilka iyo ku saleysan iyo rabshadaha ka jira dalka, inay u istaagaan dhalinyarada ay ka hortagaan iyo joojiyaan inta karaankooda ah ee ku qancaan in Ilaahay uu siiyay dal hodan ah oo taariikh dheer ku leh adduunyada. waa tahay ugu dambeyn adiga oo ka faa'iideysanaya jaaniskan mustaqbal ay ku siisay maxaad u sheegi lahayd dhalinyarada ku dhageysanaysa? aad u mahadsan tahay warbaahinta mustaqbal. dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa ugu hambalyeynaya munaasabada 15 May oo ku aadan aasaaskii ururkii SYL. waxaan ugu baaqayaa inay ku daydaan ururkaas SYL, muujiyaan dareenkii iyo wadaniyadii ay muujiyeen dadaalida iyo wax u qabashada iyo istaagida dhalinyarada u istaageen wax u qabashada ummadda Soomaaliyeed. dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa ugu baaqaynaa inay soo nooleeyaan nidaamkii ahaay lagu yaqaanay jeclaashaha dalkooda, inuu istaagaan u qabashada dadka tabaaleysan, hormuudna ka noqdaan wax u qabashada iyo bedelida dhaqanka ah qabiilka, loona bedelo dhaqan qaran doodid iyo horumar. aad iyo aad baad u mahadsantahay, waanu kaga mahad celinaynaa waqtiga aad iyo aad ayaa idinkaga mahad celinaynaa sida aad noogu soo dhaweyseen. dhegeystayaal kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal guddoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee isu taagtay wax ka qabashada dhalinyarada oo qadka telefoonka igu warramaya isagoo ku sugan goob ay ka soconayso munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayo aas-aaska ururka dhalinyarada SYL, maadaama maanta ay ku beegan tahay 15 bisha May oo ah waqtigii la aasaasay ururka dhalinyarada SYL. barnaamijkii waxaanu weli ku guda jirnaa mustaqbal.